gabadhu waxa ay awoodaa inay jacaylka ninka ay kaga kasbato 8 ilbiriqsi gudahood si aad uga duwan sidii la filayay daraasad cusub oo dhawaan natiijadeedu ay soo baxday ay daafurtay in ninku gabadha uu ku jeclaado 8 ilbiriqsi gudahood daraasadan oo muddo la waday baaritaankeedana lagu sameeyay 115 ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxa ay beenisay aaminsanaantii hore ee ahayd in ninku abuur ahaan qalbi adag yahay isla markaasna ay muddo dheer ku qaadato in uu gabar jeclaado waxa kale oo ay daraasadani markhaati u furtay daraasado hore oo tilmaamayay in ay dhacdo in aragtida koowaad jacaylku uu ku iman karo daraasadan oo lagu faafiyay barta internetka ee Joma 5 waxa ciwaan looga dhigay dumarow bishaaraysta 8 ilbiriqsi gudahood ayuu uu ninku kugu jeclaan karaa dhanka kalena khubarada daraasadani samaysay ayaa sheegtay in indhaha iyo daymada ninka laga garan karo dareenka jacayl oo uu qabo gabadha uu eegayo iyadoo la sheegay haddii uu ninku eego 8 ilbiriqsi gudahood haweeneyda haddii waqtigu intaasi sii dhaafana lagu tilmaamiba karo in uu jeclaaday daawadayaal qormadani waxay noo soo diyaariyay Kamaal Axmed Cali waxaana idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Taajir waa Bahda geeska Afrika oo idinku sii dhaafaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.